kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janalka King 252 ku soo dhawaada gacmo furan haddii aad imika nagu soo biirtay fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto warbixinada dambe ee aan soo dhigno asxaabtii hore noola joogan haddaa ka mid tahay waad ku mahadsan tahay la joogistaada basbaas guduud loogu talagalay daweynta cayilka iyo cudurka kansarka cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Wyoming ee ku taala dalka Shiinaha ayaa sameeyay basbaas guduud loogu horumarinayo daweynta lidka ku ah cayilka dawadani ayaa lagu muujiyay waxtar far badan in ay u leedahay jirka bani'aadamka basbaaskani iyo dawada ka hortagta cayilka marka loo isticmaalo sida ugu habboon waxay leedahay sifooyin xanuun joojin ah jirka bani'aadamka isdhaxgalka qaybaha iyo sidoo kale in ay ka hortagto dufinta ka samaysmata qaybaha maqaarka hoostiisa ee korka meelaha jilcan iyo sidoo kale in ay waxtar u leedahay neerfaha bani'aadamka sida laga soo xigtay Daily Mail cilmi baarayaasha Shiinaha ka soo jeeda ayaa sidoo kale tijaabiyay daawadani iyada oo loo marayo daweynta suurtagalka ah ee loo yaqaano rheumatoid arthritis taasoo daweysa cudurro fara badan oo neerfaha bani'aadamka ka mid ah dhawaanahani cilmi baaris cusub oo ay soo saareen ayaa iyaduna waxay diiwaanka loo geliyay in ay leedahay faa'iidooyin aad mucjiso u leh waxaana la sheegay in ay ka hortagi karto unugyada kansarka ee ku dhaca naasaha dumarka kuma ay ka faa'iidooyinkani oo kaliya basbaaska wuxuu daawo fara badan u leeyahay xanuuno fara badan oo ku dhaca jirka bani'aadamka haddaba asxaabta cusub ee ku soo biirtay janaalkani subscribe saar la soco fiidiyowyada dambe haddii ilaahay raalli ka noqdo kuna dadaala in aad naqataan asxaabta ku dhaqanta ee cunta ay badsata basbaaska sidaayo nabadgelyo